in badan baad maqashaan anigoo ka hadlaya filmmaking iyo documentary filmmaking iyo kamarada iyo iftiin iyo alab qalab iyo waxaas oo dhan ka hadlaya. Maanta waxaan doonayaa inaan exactly idin tuso waxyaabahan qabto iyo kamaradihii iyo leerarkii wixii oo dhan hor yaalla oon mid doonaya inaan inta badan u dhex maro bal hadda waxaan hor yaalla. Batterigan weyni wuxuu dabaynayaa kamarada, monitorka, recordingka, wixii halka qalabka lagu record gareeyo waxa soo dhan buu horta batterigani u dabaynaya. Saad u arkaysaan afar meelood oo afar god oo la geliyo buu leeyahay 63 buu marayaa imika. Kamarada waa ka charge gareynaya waad arkay kamaradii 100 bay maraysaa. Hoos waan u dhigi karaa laakiin haddana ma doonayo uu balance gareynsan yahay kamaradu imika halkan dul saaran. Haddaan hoos u dhigo laga yaabo inuu dib u leeco. Marka that's why aan isticmaalayo monitorkan. Monitorkan wuxuu toos u tusayaa exactly kamaradii. Ka sababtaas horta monitorka marka koobaad u isticmaala waa haddii aan isticmaalayo batterigaas oo dabaynaya kamarada. Halkan uu saaran yahay horta waa tripod buu dul saaran yahay. Tripodkaasi wuxuu ii fududeynaya qofka markuu halkaa fadhiisto in uu qofkii si yaro fudud ma aragtay waraysigiisa ugu geli karo. Anigana stabilization baa wanaagsan baa dhici karto. Halkan uu taagan yahay kamaradii marka waxa stable footage ba stable. Halkan waxa yaala recordingkii ama waxa yaala microphone-kii ba halkan uu yaala. Waxa la yiraahdaa waa lav mic-an waa lav. Qofka halkaas uu ku xiriirsanaya shaarka hoostiisa gashanaya, tan jeebadu gashanaya, tanna wuxuu gelinayaa shaarka hoostiisa halkaas uu ku xiriirinaya, dadna halkaas uu ka hadlaya. Kamarad lav mic-a cidiba arki mayso. kamaradina waa tan. Waxa kale oo isticmaalaa waxa weyn leerkaas waxaan u isticmaalaa my main light ayuu yahay. Saad u arkaysaan imika wajigaygii barkan oo dhan buu iftiiminaya. Halkan dambe waxa yaala leer kale oo isaguna la yiraahdo ama fill light loo isticmaalayo laakiin imika waxaan u isticmaalayaa as a backlight. Waa ka gidaarku haya. Inta badan waxa dhacday in aan tamood ku experiment gareyn kartaa waxaad samayn kartaa. qofka halkiisa damba dhigi karta bal waxa dhigi karta balaag markii wax iska bedelaan oo kale halkan aad dhigi karta haddaad leedahay shadow badan baa qofka halkan ka muuqda waad bedeli kartaa waxa weyn halkan aan dhigaya kamarada ama miiskaas aan iska dul dhigaya in wuxuu maanta waka shadowgii dhankan iga marsana oo dhan buu hagaajinaya or dib baan u durkin karaa halkan damba dhigi karaa wuxuu noqon karaa as a backlight laakiin imika saad u arkaysaan wuxuu ka soo boodayaa gidaarku ka soo boodaya mana rabo inuu gidaarka ka soo boodo bahalkan waa bahal aad u iftiin weyn marka waxaan ugu talagalay in halka hoose iska dhigo dadtan waxaad arkaysaa in maaragtay separation baa jira gidaarkii aniga waad arkaysaa iftiin baa u dhaxeeya saa darteed baan dadtan u isticmaalaya kanun baan isticmaalaya main line marka that's the footage okay haddaan sii wado coverkan hore u saaran yahay waxaa la yiraahdaa Metabox bahalkan u saaran yahay Metabox baa la yiraahdaa Metabox-kan waxa loogu talagalay in iftiinka soo galaya kamarada inuu limit gareeyo marka saad arkaysaan haddaan yiraahdo iftiinka badan ka soo galaya layer-ka ku dhici maayo lens-ka ku dhici maayo ee waxa ku dhacaya subject-kii bahalkan uu ka qarinaya marka ma wada xirayo laakiin saas oo kale aan oranaya tripod haddaan ka saaro ama ka qaado handle-kan aan qabsanaya maarta this handle right here handle-kan wuxuu ii caawinayaa inaan stabilize gareeyo qofkii ama markaan gacanta ku hayo kale kamaradii inaan stabilize gareeyo saad arkaysaan handle-kii waa kaas halkan aan qabsanaya inaan markaan qaaday kamaradii inaan markaan la soconaya amba haddaan u baahanahay inaan la socdo weeyaan dhagahan oo kale waa muhiim markaad dhageysanayso qofku markuu hadlayo bika samaacadii wataas qofku markuu hadlayo waa inuu eeg uu boodaya waan arkayaa inuu boodayo samaacadii maarta laakiin mar rabo waxaan doonayaa exactly inaan dhageysto so that's why samaacadahan oo kale aan isticmaalaya whatever headphones aad haysato waa muhiim marka iyagana waa kaas marka horaan u sheegay runtii aan markaan ka hadlayay barnaamijkaygii hore halkan aan doonayay inaan soo dhigo barnaamijkaygii koobaad pre-production markaan ka hadlayay pre-production ka hadlayay waxaan marka koobaad qofku waa inuu diyaarsadaa wuxuu doonayo in wax ku duubo marka diyaar garow way ka mid tahay waxaan oo dhan iminka haddaanad u baahnayn monitorkaas oonad u baahnayn waxaan oo dhan waad iska dayn kartaa qasab maaha maaragtay qofku inuu waxaas oo dhan isticmaalo laakiin sababtan u isticmaalayaan waxa weeyaan horta uma dhowin meel charger leh ma garatay ima dhowa
xadhig aan dabka gelin karana iima dhowa marka bayterigaas oo kale ii fiicnaanaya because wuxuu charge garaynaya waxaan u baahanahay oo dhan xitaa telefoonkaygan ku charge garaysan karaa so that's number 1 number 2 monitorkaasi bayteriga waan idin sheegay wuxuu iga qarinayaa screenka aan kamarada marka monitorkiiba meesha imanaya oo sugan muhiima leerka iyo waxa jirta qalabka bahalkan yar kale sagana oo waxa la geliyaa halkan leerka la geliyaa marka saad u arkaysaan soft box baa la dhahaa kan soft box kani leerka awoodda badan ee wajigayga qabanaya ayuu ka hor imanaya oo bahalka cad ee la isticmaalo waxa la dhahaa soft box wuxuu ka khafiifinaya leerka badan ee ku soo galaya kan laakiin haddaan isticmaalo maanta wuxuu nuurinayaa qolka oo dhan ayuu aad u nuurinaya oo leerka meel kasta uu qaybinaya kani marka ma aha kani soft box so waa inaad ogaataa makana ii muhiima mise kaasa ii muhiima markaan isticmaalayo again de haddaad dhowr qof oo kale ka duubaysa wax oo de dhowr qof oo kale halkan fadhiyaan de taasi waa caadi waxaad isticmaali kartaa bahalkan aad isticmaalaysaa because waxaad doonaysaa inuu meeshii wada nuuriyo laakiin soft box kani maadaama hal qof imika halkan fadhiyo oon doonayo inuu hal qof oo kale de iftiinka ku badiyo waxaan isticmaalaya bahalkan la yidhaahdo isagu soft boxka qofku diyaar garowgiisa ku xidhantay markaad soo diyaar garoobaysa lagu leeyahay kaalay waxa naga duub waa inaad diyaar garowdaa oo aad soo qaadataa qalabkii aad u baahnayd iyo aad ugu tala gashaa marmarka qaarkood baa laakiin waxa dhacay in haddaan leeyahay another shoot next week oo kale haddaan leeyahay inaan wax kala duubo waxaan oo dhan uma baahni qasab maaha inaad lenskan qaato qasab maaha inaad leerkan qaato qasab maaha inaad xitaa microphoneadan qaato marka hadba waxay ku xidhantahay waxaad doonaysaa inaad qabsato marka pre-productionku waxyaabaha muhiim ugu tahay waxa weeyaan diyaar garowga ka caawinaysaa inaad diyaar garowdo oo u diyaar garowdo maalinta productionka ama maalinta oo kale aan anigu wax duubay tusaalahan ay ku diyaarinaysaa leerarkaad u baahantahay baad soo qaadanaysaa chargeradii maanta wax alla wax iga dhiman waan dul mari doonaa chargeradii in halkaas wada yaalaan iyo qalab iyo bayteriyadii waxaas oo dhan u baahnaa oo dhan halkaasaan maanta soo wada dhigay just in case haddii dhacdade in ay maaragtay ay kugu timaado carqalad oo kale ama ay kugu timaado aad waxay weydo kale marka waa inaad u diyaar garowdaa markaste marka that's why ay muhiim u tahay pre-production